Jalayaal soo dhawaada barnaamijkeenu maantay waa karkar qodob xasaasi ayaan ku sidaa siyaasadda Soomaaliya sida turubka baandhe ayay maaragtay isku bedbedelaysaa intii aan xalay idin sheegayay ayaa dhacday dadka qaarkood warma lagu waxyoodaaba igu hayaan shirkii labadii madaxweyne ee maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo samata bixinta u socday waa uu soo gabagabay war saxaafadeed baa laga soo saaray qodobo muhiimana waa ay soo bandhigeen dhankaas Muqdisho shalay abaabul wati uu ka dhacay madaxweynuhu waa kii uu ku wajahnaa magaalada Kismaayo Axmedna Kismaayo laga sugay safarkii Kismaayo horta maxaa ku dhacay ma sidaas uu ku burburay mise waa jira taasna inaan ka jawaabo ayaan rabaa sidoo kale waxaan rabaa inaan idin la wadaago waxaa jirtay qatar uu madaxweynaha Soomaaliya shalay ka badbaaday maxay tahay qatartaasna waan idin sheegi doonaa jalayaal waxaan idin ka codsanayaa halkan waa meesha kali ah oo wararkii ugu dambeeyay iyo xogaha oo la soo shaadheeyay waliba si degdeg ah aad ka helaysaan la gareeyo muuqaalkan YouTube kana ku soo biira faafahinta barnaamijkayga rabaa inaan u guda galo qodob oo halisana Jubbaland iyo Puntland waa ay soo bandhigeen oo waxay soo bandhigeen labada qodob oo ah in mandate-kii iyo doorashadii Axmed Madoobe aan laga hadlin sidoo kale warqadii waaranka ah laga noqdo waxyaabahaasi soo bandhiga xayiraadahana la qaado ka hor inta uusan madaxweynuhu tagin arintii waa adkaatay ayadoo arintii adkaatay shalay waa asagii madaxweynuhu isku maqiiqay inuu Kismaayo tago oo ciidankiisii dirsaday oo si dusme ah buu dabcan inuu Kismaayo ku tago waa shaqayn weyday arinta markii ay shaqayn weyday kulamadii waxa ku biiray golihii samata bixinta si aad ila fahantaan sheekada Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ka carirayay sideedaba inuu kala qaado rabaa qoladan samata bixinta inuu meel ooga tago rabaa inuu Puntland dhinac oo la heshiiyo ayuu rabaa haddana Jubbaland inuu ku hormaro oo gooni oo la heshiiyo labadii madaxweyne waa la kala fijin waayay haddana midowgii ma aragtay musharaxiinta ayaa ku biiray arintu waxay noqotay ninkii ooda qaadi waayo oo kala loo saaray Xasan iyo Axmed wada xaajoodkoodu meel buu jooga meesha uu joogayna waxa weeye si uu Kismaayo u tago horta waa in Jubbaland mandate-keeda saxda ah ee doorashada la siiyo oo halka la dhigo sidoo kale warqadii waaranka ahayna laga noqdo sidoo kale xayiraadana la qaado markaas kadib ayaa madaxweynuhu Kismaayo imaanaya intaasna waa la ii sheegay oo qorshaha socdo oo qoladan damjidid tashiyay wadaan oo ka tashanayaan goorta lagu ballansan yahay in shirka uu Kismaayo ka dhaco madaxweynaha waxa la sugayaa ilaa Axadda iyo ilaa Isniinta meelahaas ayaa la sugayaa ninka la yiraahdo Axmed Madoobena Jimcaha ama Ilaahay duu ku sameeyay Sabtida inuu magaalada Kismaayo tago ayaa la rajeynayaa oo ay wax isfurfuraan Xasan Axmed Madoobe asagoo laba gool ka dhaliyay Xasan ayuu haddana safar ugu tagayaa sababtoo ah hadda markii aad wareysatid qoladan team Xasan waxay ku leeyihiin Axmed Madoobe asaga soo qohdibtay barnaamijkii xagga aan ka wadnay iyo weeraradii wixii uu adkeysan waayay asaga lugaha Xasan Sheekh Maxamuud hoos jooga wax kasta waa laga saxiixaya Xasan markuu meesha tago wuxuu rabaa inuu geeyo maaragtay bahaladii sanaadiiqda iyo waxyaabahaas doorashada inuu kala shaqeeyo muddo kororsiga inuu kala shaqeeyo macnaha waxay ku sheegayaan wax aqliga gali kara ma aha qoladan kalena markaa wareysatay waxay ku leeyihiin Xasan waa jabay ka adkaanay waa isa soo dhiibay labadaas qodob hadduu saxiixana waa noo imaanaya inta marka laga yimaado su'aasha adiga sugaysaan waxa weeye qatarta uu madaxweynuhu ka badbaaday inaan idin sheegaan rabaa sida ogtihiin Jubbaland warqad waaran ah ay u geysay ayay u jartay madaxweynaha Soomaaliya ciidamada Jubbalandna waxa lagu amray meel kasta oo lagu arko madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inay gacanta ku dhigaan oo ay soo xiraan oo soo jeebeeyaan
maxkamadda Kismaayana la horkeeno laguna oogo dambiyadii ay maxkamadda Kismaayo ku soo oogtay waa madaxweynaha Soomaaliya warqadda waaranka ayaa Kismaayo taal ciidamada nabad sugidda ee Jubbaland iyo ciidanka militariga iyo ciidanka daraawiishta Jubbaland iyo ciidanka madaxtooyada Axmed Madoobe intaba warqadaas oo la koobiyay ay haystaan haddii marka shalay ay dhici lahayd in madaxweynuhu si degdeg ah Kismaayo uga dego ciidamadaas ay arkaan oo indhaha saaraan si degdeg ah inay xabsiga ugu tuuraan ay noqon lahayd marka madaxweynuhu qatarta ma ogey jaalayal waa idin salaamaya muuqaalka si sheer gareeya leegta la dhaca